dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed baarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal waa hore iyo waa dambaba markii ay reer miyiga u badnayd iyo dalaalkii markay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba waayadii ay talisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markay inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba heer kastaba ha joogtay soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay degaanka ayay ku heshiin waayi jirtay daaqsinta cashinta iyo milaysiga ceelka ayay ku coloobi jirtay shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen welibana u askareeyeen 1949 golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobonnimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin Ingiriisna aan laga adeejin qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo 1960 kale aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo tan iyo 1980 inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay waxaase jiray go'aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay waana af Soomaaliga qoristiisa go'aankii lagu gudoomiyay taas marxaatigeedana meel fog laga dooni maayee waa dhow yahay oo waa kaabiga iyo isha baalkeeda waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga lahayd geeraarka lahayd buraanburka lahayd heesihii murtida iyo guubaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heestii xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc labadaba allaha u naxariiste rayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geysiiyey markuu dabi joogaba in xaaji aadan uu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo waxaa ka mid ahaa tudciyo markhaati looga dhigan karo maalmahaas sidii dadweynuhu uu go'aankaas ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday waa tudcyadii uu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay far qoran inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yidhaahdeene madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene waa taas mashxaradii guryaha laga maqlayahay allah u naxariistay tudciyo kale xaaji aadan inagu dareensiinayaa qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka Soomaalidu uu qiilqiil ku jiray ummaduna aanay waxba dhaamin wax gudcur maara ruugle ku dhex nool dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af Soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan mahadho taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagama maarmaan yahay in afka hooyo aynu gows dambeedka ku qabsanno wuxuu yidhi boqolaal gubuu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuur jirinee maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadho taariikh leh iyo madax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa laga maarmaan gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeeddadaas ay hal abuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa si hagar la'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa ha ahaadeen qaar madax bannaan
ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeene go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen. barashada farta ayay dadweynaha ku gubaabin jireen. qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. waxay ahaayeen heese keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricini ay adag tahay. heesahaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku jarbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray hal abuurka caanka ah ee allaha u naxariistay la odhan jiray maxamuud cabdilaahi ciise oo singub lagu garan og yahay. waa ninkii fahmada badnaaye wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af soomaaliga ee naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo muqdisho laga sii dayn jiray. markaas buu qaybaha 9 ah ee afyaqaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu uu u kala baxo heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qoraayo aan erayada kale lagu dari karin. dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waaberi ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. heestaa singub waxaa midhaheeda ka mid ahaa: garta magacuyaalada qodobada ha gara marin, ma ebyanaha kala goyn, fal ebyana garaangeli, ma gudbaha ogsoonow, fal gudbaha ha gees marin, gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garabsi. gobolladuu u kala baxo naxwaha maanka geliyoo 9kaba ku geeraar. guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman. siina kala guroo 32 garab dhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagagu gaadin oo yay ku gaadin godadka labalaama. iska giiji shaqallada markuu soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu madahayga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaday, war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaa si toos ah soomaaliya loola soo bareeri karin. maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa. yeelkeeda singub oo warkaas maanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gebagabeeyey: gumaysi iyo la jire, guushayada ninkii nacab, fartayadu ninkay gubi, gidaarka madaxa ha ku dhuftee, maxay iga galay waxba. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.